qadarti rabbi iyo tooda ayaa meesha ku ekayday waqtigooda ilaahay waqti inaanu ku dareynin qof walba horay ayuu ilaahay noogu cadeeyay qof walba maalinteeda iyo saacadeeda inaan saacadna lagu dareyn saacadna aan laga soo hormarinayn wiilkeena farxaan iyo raggii kale oo la jirayba iyo intii naga dhimatayba waa shuhada dhab ah waaye waqtigoodii ilaahay uu qoray ayaana meesha ku ekay asbaabtu siday doontaa u ekaato laakiin saacadaas inaanay dhaafi lahayn oo toodii ay meeshaas ku ekayd ayaa xaqiiqo ah annaguna muxuu ahay qadaha rabbi ayaan ku qanacsannahay oo maxaan ku raadaay aan aaminsannahay u duceynaynaa in ilaahay maxaan ku raadaay uu samir iimaan ahladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dhammaanteedba ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto nin dhalinyaro ah janan ah dagaalka nimankan lagula jiraa doorka uu ka taagnay iyo meesha uga jiray la wada garanayo ahaa nimankaana waxay yihiin hadda isu tilmaami mayno oo maxauna fasiri mayno cadow waaye cadow ummadda Soomaaliyeed waaye cadow dalkan waaye cadow dadkan waaye cadow dadkan diintiisa waaye diintay cadow ku yihiin dadnimaday cadow ku yihiin dalkay cadow ku yihiin dadka jiritaankiisa ay cadow ku yihiin intaas cadow ah ninka u bareeray marka inuu ka hortago oo naftiisa u biimeeyo ilaan dagaal hadaad aado inaad soo dhimanayso inaad soo noqonayso labadaba waa suurtagal laakiin inaad soo dhimanayso dagaal hadaad aado waa ku tala gashay marka ninka dadka ku dhiirada oo maalin walba taagan oo hadda uu ugu dambeeyay wiilkeena muxuu ahay farxaan oo janaasiis ku dukanayn oo odagii maxaan ku iraahdaa nabadoonka ahaa ee la yaqiinay cilmi hagar oo muxuu ahay maalin dhaweeto uu muxuu ahay oo ku dhinta soo qorsito oo dagaalamayo nimanka la dagaalamayo dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa geesinimada dhabta taas waay ayaga shahiid ah oo diinta inay badbaadiyaan oo dadka ay badbaadiyaan oo jiritaanka ummadan ay badbaadiyaan oo dalkan ummadan muslimiinta boqolkiiba boqol muslimiinta ay leeyihiin magaciisa iyo karaamadiisa iyo jiritaankiisa ay badbaadiyaan kuwa u taagan waa kuwaasa kuwa maxaan ku raadaay shuhadada dhabta ah waxaan u baahanahay maanta Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed haddaan nahayba yaa cadow ah inaan isweydiinaan u baahanahay maanta waayo cadowga ay leedahay ummadan inaan isweydiinaan u baahannahay Soomaaliya maanta yaa cadow ku ah dowladnimada yaa cadow ku ah dadkan jiritaankooda inay jiraan ay ummad jirta ahaadaan qaran ahaadaan nation yaa cadow ku ah oo diidan inay cibaadaystaan oo diintooda ku toosnaadaan oo masaajidda camiraan yaa cadow ku ah oo diidan oo masaajidda ilaahay cabsi laga qaba daraaddeed ay u camirmi laayihiin dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee duruufta iyo maxaan ku iraahdaay muxuu ahaay qadaha rabbi uu keenay ee abaartu ay ku dhacday ee miyiga ku gaajaysan ku haraadan ee walaalka kale Soomaaliga oo muslimka ah ama midka caalamka jooga ah oo raba inuu u gargaaro oo biyo gaarsiiyo oo raashin gaarsiiyaa ka hortaagan cadow kale may ummadan leedahay qof hooyo iyo ilmaheed haraadan waan sheegi doonaa magacyadooda 4 cunug oo isla dhalato dugsi quraan u socota nimanka dilay waa maalin dhaweeto on the record sawiradoodii Allah haya meedkoodii Allah haya 4 wiil oo yar yar oo isla dhalatay oo hooyadii ay u soo dirtay ordamaan maxaa dugsi quraanka aaday tiri nimankii jidka ku dilay nimankan waa cadow dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta dadka shaki uga jiro shabaab inay cadow yihiin in kale walaalayaal waa dhunsantiin ilaahay ay soo hanuuniyaan leena ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow baasada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadow waa meel dhaxo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taalo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraya tahay meel dhaxo la istaaga kuma jiro shabaab qora qaado kula dirir maxaan ku iraahdaa dhagax ku waxaad kula dirir karto gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tagin ka leexo
أفكا دتك الشيك عرب كاغا كل الدجال وذلك أضعف الإيمان تي أي دبس عطاتاس حمان واي قف بنا آدم دت قف كدلا قف دوني دو أردن أسود دلي أيو لميديا قف نوليانا ومد أردن أسود نوليا لميتها أنت يا كويس أنا مركز مكان بل أي واحد كل إسكده دت كينا وادليان قف مدليان تربي ودليان نفتينا إن لبد بادية ديديهن دلك كسكو حبتكم ادلوها ين قرح كليكم ادلوها ين باهي كدلوها ين دتكي مجاعة إن دتك كدحك عدي كدلوها ين لأن الراشين لوضه وأن مراد كلا لو ودين أو ننجيب كيس أنت كبحي باس أو كبحي وكسر قدو يرها ولا لها دبعتيسن أو ظروفيسن هل جارسيو وجدك تاجي وديديها مقالة ذبي دبا مثلا سوق هذا وجمهورية لما صدع لبا بقول إيسيديتن كون أو قف وايا ددوينها الدجن جريها كله اللي يقان مقالة بيدبا سدح بقوله كون وحيرا كدم تضوب بقول إيو كنتم كون أو بركة عيال أها جوجة قبيل إصدر كما سو عررين عدو سود دولو دي بدك كي كما سو عررين أبار واكود عدوارهم لكن ميشو ذا وحلوغو جي كري deegaanadooda ذا وحلوغو جي كري qaarkood meelihii ay joogeen ilaahay wuxuu qadaray inuu roob ka da'o waa beeran waayeen beerihii beerta saad u beertid beesa keenaa la yiri ilaahan idinku dhaariyey ee dadkaasi intaan iska soo galnaa waa isku midab egnahay waa Soomaaliyan ku wada hadalnaa miya intaan iska soo galnaa meelaan iska soo galna malaha ninka mabda'aas qaba meelaan iska soo galna malaha qofkan koronu qaba hadii la soo kama carareyn ayaantii dhaweeto ya koronu qaba hadii la hebela koronu qaba hadii la soo kama carareyn nimankaas waa ka carareyna u dhawaameyno wax ku darsamayno meeshay joogaan tagin bayno maxkamadooda iyo businesstooda iyo wacdikooda iyo shirkooda iyo muxuu ah meel ay joogaan tagin mayno yaan la tagin yaan loo dhawaanin meel ay joogaan yaa tagin geesiyaasha kuweenna ah ee dagaalamaya ee duruufo adag ku dagaalamaya bal nin fiiri aan mishaar qaadanin hadda awal askarteena mishaarku waa ku yaryahay iyo dhaqaaluhu waa ku yaryahay iyo sidaanaan dhihi jirin maxaa soo baxa hadda kumanaan Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oon mishaar qaadan annaan rabin nin walba gurigiisa saaka inta muxuu ahay cambuuladii holi kar inta ka soo cuno qorigiisa soo qaatay dadnimada meeshaasay jirtaa midaa dhuumanaya shabaab beeso ula dhuumanaya beeso u wado ha telefoonal isoo dir aniga waa cabsa caqiidadiisa wax u dhimay laana maalinta uu dhimalahay inuu ka soo hormarayo aaminsan yahay maalintii ilaahay u qoray oo uu dhimalahay inuu ka soo hormari karo shabaab dhimashadiisa ka soo hormari karo aaminsan yahay kama soo hormari karo maalinta dhimalaheed un baad dhimanay ama shabaab beeso ula garguuro ula dhuumo ama qora qaada shabaab la dir maalintaadii aad dhimanayle kama soo horm inaad qora qaadato daraadeed dhimashadaadu uma soo hormarayso inaad lacag laaluusho xaaraan ah shabaab oo dad lagu dilaayo dad lagu qarxinaayo oo dad lagu nehbaayo inaad shabaab ula garguuratood ula dhuumatana ku badbaadi maysid caqligu ha noo soo noqdo xisku ha noo soo noqdo adduunyadan maalinaad leedahay maalintaadaad dhimanay sharaf iyo karaamo ku dhimo ilaahay qabrigooda ha u waasiciyo ilaahay dembigooda ha dhaafo ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo abaal allah ka waraabiyo ummadaanay abaal u galeen oo naftooda inay u bixiyaan ay go'aan ayagu ay gaareen lama khasbin laguma riixin laguma waxayn ayaga go'aan gaaray fiiriyay ummadaan inay culays ka saaray dib ka saaray ka dul qaadaan boqolaal kumanaan waaye kuwa naga dhinto naga baxmaan kuwa nool wali soo taagan oo taagan مثلا usoo qaadanay muxuu ahay general muxuu ahay farxaan magaan sheegayno ama nabadoon cilmi hagar aan sheegaynaa مثلا usoo qaadanayna waa kumanaan dadka u taagan ama ku dhintay qaarkoodna wali u taagan yahay oo maxaan ku raaa kor u hayo muxuu ahay kelmadda saxda ah ee muxuu ahay islaamnimada waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan cadawaa hal laba ma aha laba cadow ma lihin hal
maanta soomaaliyada maanta berri wixii ilaahay ka dhigay noqon doontaa insha allah. maanta soomaaliyada jirta cadow waa hal, waa shabaab. shabaabka qaraxyada oo hotel xayaa dadka ku laayay oo 14 Oktoobar maxaan ku raadayay dadka maxaan ku laayay kilomitir 5 iyo maalin walba saas u laaynaayo oo qarxinaya ki qarxiya bas ma aha. qaraxa shabaab ma soo candhuuf meel uu ku tufay ma aha, baas uu ka soo bixiyay, dad uu ijaaray, meel uu ka keenay, lacaga lagu bixiyay dhammaan. wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneer oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha. cali dheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha ka sii mujrimka kale oo ka sii weyn bangiga baase ugu ma jirto. baasadeena waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dambiil ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas la isku xirxiray ki bixiye dambiil ma aha waayo qofka loo sheegayo oo aqligiisa oo aqbali karo. dambiila tahay adaa ka weyn laana adiga lacag hadaadan dhiibi lahayn ninkan qarax isku xiray ma heli lahayn. adiga waayo mid ka weyn kan lacagta dhiibaayo waa adiga, dambiilaha koobaad waa adiga. laana ninkan wuxuu qarxiye ma heli lahayn hadaadan adiga lacagtaada dhiibi lahayn. nolosha iyo dhimashada ilaahay yaa haayo. abu hebel ma haayaan. yaan lagu kadsoomin taas waa caqiida yaraan waaye, waa diin yaraan waaye inaad saas aad muxuu qalbigaaga ay gasho oo aad ku fikirto. inaad ishaligtood qaar iska tuur noqotaa meesha kuma jirto. inaad xeeladayso, is ilaaliso, naftaada sidii Allah saad ku badbaadi karto aad ku badbaadiso, laakiin naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo. taada kuma badbaadi karto cudurdaan uma gumaystaas. sharciyan meel aad uga banaanta malaha nafteydaan badbaadinay marka boqolkaas qofood in la dilo ayaan maxaan ku iraadaaye aan nafteydu ku badbaadinayo mana ku badbaadiyo hayst. cudurdaarna uma laha. mandiq meel ay ku salaysan tahay iyo xigmad ay saaran tahay male. diin ma aha, caqli ma aha, wax ay tahay lama yaqaan. aniga shabaabaa idilaayo si uuna ii dilin, laakiin qaraxa oo zooba dadka kula lahay beesidiisii aan dhiibaa. dadka Soomaaliyeed oo meel kastoo aad joogteen walaalayaal kaca, qalbiga ka kaca, waa hurdaan, hurdada ka baxa, riyada iska dhaafa. adduunyo saas laguma raadiyo, aakhirana iskaba dhaafbo. maanta waa ku celcelinaa soomaaliyada maanta joogtaa ee ilaahay dadkii noolaay oo zamanka joogay annaga inteenani inta nala mida oo ilaahay naga dhigay hal cadoway leedahay. waa hal cadow. cadowgaas shabaabaa la yiraa. macnaheeda kan qarax samaynaya kelimaa shabaab kalkaal, baasabixi, guri ka ijaar, baabuur ka ijaar, u soo iibi baabuura ka sii iibso, baasaan ka helow haadhe, xagga ka dhac, inta yeel. walaalka Soomaaliyeed oo muslimka ah oo shabaab kalkaal ha noqonin. cadow waa hal, waa shabaab. qalbigaaga wax ku jiro ma xukuno. maxay ahayd naxnu naxkum bidawaahir wallahu yaxkumu bisaraa'ir. waxa qalbigaaga ku jira markaad shabaabka la hadlaysay iyo waxaad kala hadashay adaa yaqaano, laakiin annaga inaan la hadashaan u jeednaa. shabaab kale la hadlale. Soomaaliyey walaalayaal shabaab ha laga fogaado macnaha physically distancega ha laga fogaado 2 kilomitir ha loo jirsado ma aha. la ma aha. dhaqankiisa ha laga fogaado, macaamilkiisa ha laga fogaado. ha la dhaqmin, ha la macaamilin, waxa ku darsanin, ka leexo, ha u tegin. meeshuu jooga ha joogsanin, alla naftaadaaba khatar ku jirtaba. meesha uu jooga haddaad joogto in lagugu duqeeya baa khatar ugu jirtaaba. iyo in operation lagaa soo kor degto oo commandoska ay kaa soo kor dhacaan meesha lagugu waxay ku jiro. waa u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed mar kale, waa ka waaninaynaa, waa uga caqli celinaynaa, waana uga digaynaa. cudurdaar ma lihid. madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaan karo, la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto. saxaro qor dheeraa la isaga tiraha la yiri qofba shabaab tuumadiis ay soo maxkamadiisu ma wallahi ninka waa loo yar waa ku qasbanay maxkamadiisu tagay ahlan wa sahlan shabaab waay meesha waa ka baxo.
عذر دار ملهن أنا اللي يقول ما كرن saraakiisha amnigan loogu tegi karin ninkii ugu taga sagaashiinka amaroon waa u sheegna haddana waa ku celinayna ninkii nin shabaab daba socdaa waa shabaab kalkaal nabadoon ma aha xildhibaan ma aha maxaan ku yiraahdaa walax kala ma aha wasiir ma aha waxba ma aha waa shabaab kalkaal shabaab xiran ninka daba socdo waa la dulmina maahanoo la dulmima meeqa shabaabnimo inta lagu eeday maxkamadaha la geey waxba inta lagu la soo daay socda la yiri oo baladkooda soo aadeen system aan leenahay maxkamadaas waxay xukunto say u xukuntaan u aqbalayna juhdi iyo dadaal ayaga laga rabaa iyo inta baarista iyo muxuu ahaa hawsha ka shaqeyso laakiin nidaamka sharciga waa marayna noogama adkaan karaan shabaab inaanu nidaam sharci amaraynin oo sharci darro ku socdo noogama adkaan karaan ka fogaaw xushmo iyo karaamo iyo qadarid iyo kuma lihid shabaab ina ag joogto daraadeed by the time waqtiga aad shabaab u tagtay ood la joogtid waxaad beer daraysay xuquuqdaadii ogow waa nahandadaa iyo waa laydilaa iyo dowladda ima ilaali karta maahan oo aad dalka dhamay kula qabo balaayo la isla qaba balaayo ma aha waa lagula wada qabaa annaga dhammaa taadiidsan caqiidadeena aan ilaalino maalintaad dhima laheedaad dhimaneey walaalka soomaaliyeedu saacadna lagugu dari maa saacadna lagaa dibdhigi maa saacadna lagu soo hormari maa saacadna lagaa dibdhigi maa bas nimanku maxay nagu haystaan dhiiranaantaas yarta aan laanahay wax yar inaan dhiirano aan laanahay aan dhiirano ilaahay idankiis waa ka adkaanaynaa waana ka adagnahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka adkaanaynaa shabaab inaan ka adkaanayna ilaahay idankiis layskuma hayo yay nagu dheeraanin le waqtiga oo ka adkaanayo nagu dheeraanin aan soo gaabino nimankaas shabaabaa la yiraa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idankiisa kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda bas annagaa u baahan leh inaan fahamno aamino ku qanacno maalmahooda inay tirsan yihiin annaan dadejino hor u dhammaystirno waxaadan hurayn habaar laguma darsadaa la yiri waa nimankaas isma hurayne yay nagu daba dheeraanin ciyaw aan warkooda iska dhammayno aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale iyo mar kale ilaahay dembigooda ha dhaafo su-aasha muxuu ahaay allah u fududeeyo qabriga allah u waasiciyo iyaga iyo inta qadiyadda ay u dhinteen u dhimatoo dhanba ilaahay ha yooro ahladii iyo qaraabadii ummadda soomaaliyeedna samri iimaan allah naga wada siiyo aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu